أهلا فيكم أحباب ملك الدنيا الدافئة كجوكتان maanta waxaan isla eegaynaa kiiskii Tunisha Sharma iyo Shaysan Khan wixii ku soo kordhay Tunisha waa qof iska galbatay laakiin dad bay sii galaafatay asxaabta qiimo badneed laba saddex casho u dambeeyay waxa la hayday Munay ka soo hadal kiiska halku ku dambeeyay waa idin maqnahay waa idin ogahay waa idin la socdaa laakiin waxaan doonayaa inaan dib wax macquul ah idin la soo horfariisto waad ogeydeen sagaalka bisha iyagii baa kala maqnaa 12 ayaa maxkamadda dib loogu dhigay 12 markii la yimina dood adag ba meeshii timi oo ninkan lawyerkan Shilindara oo Shaysan Khan qareenkiisa ama lawyerkiisa ama abukaatiisa ayaa reerkii yani aad moodeen doodii kaga badiyay ninkan dadkan waa iska hundu oo ninkan heer muslimnimo ku dilayaan anu saan u fahmay dabcan waa iska muuqata waa muslimnimo sababtoo ah maalintaas cadeymo wanaagsan buu la yimi waxyaabo xaqiiqo la yimi waxyaabo wax ku ool la yimi wuxuu doonay in marka damaanad ahaan uu dabada inaan ku ugu baxo uu dabada joogo laakiin wixii maxkamadda mahadhow ka soo galo uu iman karo macnaha si xornimo ah uu dabada laakiin u joogi karo oo ay yani dhibaato ku tahay jeelka uu ku jiro marka wax badan buu sameeyay oo wuxuu sameeyay waa ta koobaad horta wuxuu soo ogaaday gabadhan inankan markay kala hadheen in nin kale xiriir la yeelatay ninkaas la yiraahdo Cali Master Cali nin la yiraahdo ku soo kordhay kiiskii Cali ba xiriir lahayd Cali xitaa wuxuu yiri 12kii bishii December ma iyada 14 bay dhimatay 12kii bishii December habeenkaas guriga uma dhixin buu yiri guriga inantu uma dhixin oo ninkaas ku dhaxday oo ninkaas maalmo u dambeysay wada socdeen oo ninkaas ku faraxsanayd oo wuxuu keenay message call telefono aba balaayo ka jin oo dhan ay ka wada xiriir jireen ninkaas macna gabadhaas xiriir cusub way samaysatay buu taagnaay maxaa inay bari hore kala hadheen loogu haystaa ayuu taagan yahay wuxuu kala cadeeyay ninkan Shilindar waa nin dadaalayo aad buu dadaalay ninkan wuxuu qaban karay 12 bisha waa sameeyay isagu laakiin waa geesi macna hil waayay wuxuu sheegay inantan Tunisha Sharma intaanay dhiman macna saacado ka hor dhimashadeeda qofkii ugu dambeeyay la hadlaysay oo ay la faraxsanay la sheekeysanaysay inuu ninkan yahay Cali la yiraahdo Caliyow adiga ay inantan camera video ba kala hadlaysay waa qofkii ugu dambeeyay ay Tunisha Sharma ay la hadlaysay marka wuxuu leeyahay ma la iswaalaya naagtan xiriir bay ba lahaydee qofkani xiriir buu ba lahayd maxaa ninkan loogu haystaa isagu taagnaa waxaana la sheegay in maalintii la gubayay uu meesha uu yimi يعني قف حرير اللي معنا ماشي قبتان كوسو استاجي وماشي إسلانت ليش شخصني إسلانت أسكت دقة مرة يصو أو إن أنت هذا أي أوجد إن نكن حرير لا لحد أيو شارع كوبي تفنكي مركبشة ضد إسقى كلها إسقى قوتي لكن جيسي ده الوايف ونقدر ماشى مسلم يهندو بالسكولين يعني ورمى هاي سيدي كده ما حد عاي كده بده سيدي فيلم ما ضاد فيلم اللي كان لابيان ساعدي بعد عدا بريها لا يسكو سو نقض كويتك بشي هاد marka xalay 13 bisha la isku soo noqdo 13 marka maanta ahayd ana waxaan la sugay maanta oo jimca ahayd warka soo baxa aan de war in la soo fariistaan doonay bal sugan oo aan de waxaan islahay insha Allah wala soo deynaya oo maadaama uu lawyerkiisa iyo hooyadii iyo familkiisa walaalihii ay aad dadaal ugu jireen inay ninkan bal ugu yaraan damaanad ay u soo qaadaan oo dibadda ku joogo wixii hadhow maxkamad iyo sharci laakiin u taagnaadeen laakiin sidii ma dhicina maanta markii la yimi hadii uu isagu COVID bisha uu ku watay maanta islaantii yarada mucjisada ahayd Fanita oo ah hooyada Tunisha Sharma qofka commentiga ku soo qoriyay islaanta yare mucjisada ah waxay noqotayba islaamiga raay khaymiinta filmada wali musalsalada ku jiray been maaha waba khaymadba inagu imika hadeer waxaan ka sheekaynaynaa hindi ka sheekayn mayno dadka noloshooda dhabtaan ka sheekaynaynaa bal eeg iyaga baa filinaba noloshii baa filina marka in la yahay nolosha waa filin waa wasaas ruuxan ku yiri aan sheekada ku soo noqday maanta markii la yimi 13 bisha islaantii ayaa dhaxda soo xiratay way soo diyaar garowday iyadana de ilaa hilba isku ogtahay iyo dad ma garanaysa qareenkan xun iyo dadkan ay ogtahay in ma garanaysa iyada loo naxariisanayo iyada garab la siinayo cadaalad darra meesha ka jirta weyne waxay soo istaagtayba waxay tiri mudana xeer ilaaliye inantaydu waa runinkan xiriirku ka dhaxeeyay laakiin xiriir walaaltinimo ka dhaxeeyay xiriir saaxiibtinimo ka dhaxeeyay ninkan wuxuu ahaa coachkeedii gymka waa ninkii gymka yani tababaraheedii gymka weeye yani waa tababaraheedii gymka nina xiriir hoose ka dhaxeeyay ma jirto وين الشيخ هذا إكسلانت اللي أي سنة
صراحة كلها صدق عشان قدام بيسنا ها ولا بحبحيسة دي وحي سجن لاير كاسود دياريو أوج لكن ويسا waxay ogaateen warkeedii la hayo markaas ayna maanta soo dirgo waxay tiri waa run saddex cisho u dambeysay way wada baxayeen waxna way soo wada cunayeen way israacayeen wayna sheekaysanayeen laakiin walaaltinimo saxibtinimo ma ka dhaxaysay waxay tiri ma khasba in xiriir ka dhaxeeyo islaamka birsan way leena qaymad waxay tirta kale oo isaga hadda israacaan coachkeeda ah maxaa balaayo ku jirta asxaab badan oo xaflada lahayd ba way u yeerayeen way u tagayeen marka waxay tiri falaq naas iyo shafaq naas iyo shilindara iyo hooyadoodba kiiskay doonayaan inay daboolaan weliba waxay ku sii dartay balaayada islaanta ku sii dartay waxay tiri naagta falaq naas la yiraahdo iyo ninkan hooyadii nantayda waxay ku khasbi jireen inay xijaabatoba inay diinta muslimka soo gasho ayay ku khasbi jireenba inantaydu si dhaba ninka ma jeclayd waba laga faa'iideysanayay ku leedahay islaantu waa ayid islaantu waxaan malaynayaa markay ogaatay inuu muslim yahay oo ay la sheekaystay bay diiday labada leeyahay way isku dhaceen inantayda islaantu way sahayeene islaantu waa cunsuriyad weynaatay waxa ka daran looyarkiisa macna looyarka inanta looyarkay wadato islaanta xun qaymada ayaaba ka daranba oo mid mucjise aba runta been u bedelaya adoo qaymintii de looyarinta qayminta lacagta la soo siin jiray ma ka alaabeen ruuxan ku yiri maanta de qayladii ba cirka isku shareertay waxay ku dartay waliba waxay tiri ha maalintii inanteeda lagu bay ugu yimi laakiin muxuu igala hadlayay laakiin muxuu igala hadlayay wuxuu igala hadlayay in inantaydu ay isaga ku nafis jirtay oo u sheegi jirtay in inantaydu ku nafis jirtay ninkan odayga ah coachkeeda walaalkeeda oo saaxiibkeeda caadiga way ku nafis jirtay waxayna u sheegtay in sheesan khan armiisa wuxuu ka sheegtay marka arinkaas iyada lama sii gelin oo wax la booliska ayaa duubtay baa la yiri arinkaas duubtay oo markii uu la kulmay ninkaasi waxbuu ka sheegay sheesan khano ay tunisha u sheegtay de wuu igu adkeeyay oo uu inacay waxaan ahayn malayn ma inay jiraan marka nin la yiraahdo Raul oo isna qisadaas mar hore ku soo dhacday oo dil iyo waxa noocaas lagu masabiday inta gabadha dhimatay ayaa wuxuu yiri niyo heeram inta la isla yaabo oo la xishoodo ma wax laga bedelo imisa nin iyo naag ayaa kala tagtaa haddii ninkii naagta kala taga ila qof baa go'aanka kale qofka nacayee qofkii kale hadduu isdilo labada kala tagay iyo labada isfuray iyo labada de isku leeriyaba haddii qof walba uu qofkii ka tagay uu isu dilo ma isaga baa loo qabsanayaa malaayiin qof aan aragnay buu ku leeyahay aan ku jirno oo mishinadaas loo qabsaday problemyada in macna dadkeedu inta istileen ama jacayladooda inta istileen ama xaasaskooda istileen hadda leeyahay adiga ka dambeeyay anagii buu qofkina ka dhintay maxaad ka sheeganaysaa adoo anyway sheekadii waxay isku noqotay hirig maanta waxay ahayd ninka in dibadda la geeyo in la soo fasaxo laakiin soorihii ayaa diiday oo yiri ma baxayo yiri waayo islaantan waa mucjiso waxay tiri inantayda diinta islaamka ku khasbayeen wali waxay tiri hala soo xidho baba taagan taaba sheesaan ba ku jiray iminka bay sheegaysan oo soo saaran leena mudan xer ilaali islaanta ay soo xidbay leedahay inantadii waxa dulmi bay u geysatay ba diin aan rabin bay ku khasbayso islaam la yiraahdo mucjisnimadeeda ka waran xitaa waxay sheegtay in ninkan sheesan khan uu daroogada isticmaalo oo budada si wali u isticmaali jiray oo inanteedana uunu marnaba uunu jeclayn oo inanteeda uu kala socday ama uu kula socday inuu lacagta ka qaado oo balwada ku soo iibsanayo oo naxariisu hayn oo marna ay hooyadii iyo walaashii falaq ay lahaayeen ayaa muslim na xijaabo na sidan samay marna isagu lacagta ka guranayay islaantu ciil ay u qabto mala inanteed ba aad u jeclayday inanka dabcan marka ciil ay heerkan u qabto ay islahayd markii hore inantaad maxay u jeclaato inanta ay ka kar la'ayd bay reerka kula dhacay waxa laga yaabaa islaantu in badan inanta ay istiri ka reeb waxay isugu dhacdhacayeen lawaal tala sheego la isku dhici jireen islaantu way saayeen inanteedu waa sababtaas inankan la reeyo muslimka sheekada hirig bay taagan tahay imika ka asxaabteeda qiimo badnayd wixii wareed damba ka socon doona imikana wali taariikh ma jirto cayiman oo leeyahay taariikhda hal isku soo noqdo deebun baa loo dhigay baa la yiri bal waan eegnaa xilliga ay noqon doonto igana warsugo insha Allah ana ila soo socodsiinaya
wixii news soo kordhay insha Allah taala maskiinka yar meesha lagu sii celiyay jeelka lagu sii celiyayna qad baan uga xunnahay wallahi dadkii oo dhan baa yaabana waxay leeyihiin caalamka oo dhan inaga kaliya maahe haleeyahay macna muslimnimo ayaa ninka loogu canaadaya meesha muslimnimo waayo wax dambi loo haysto naag bay isticlaydeen waad kala tagteen weystishay adaa lagu qabsanayo wallahi waa cajiib ya cajiib waxay taagantahay kooyada la soo xidhaba wariya islaantan sanduuro yaa naga qabsado sanduuro caadi ah inka sanduuro yaa garanayayna asxaabta qiimaha badnayd kaliya like subscribe aad baad u mahadsantiin ila socda oo ila socda